بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناغسن daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan halkan waxaan idinku soo duubayaa sheekadii taariikhdii koobnayd cilmi boodhari iyo hodan halka aad ka daawanaysaana waa janaalka hubaal TV1 mudanayaal iyo marwooyinba intii nala joogto way nala joogtaa inta kalena subscribe si saar kambaleelka furo sii sheergaree si dadka asxaabtaada ah ee sheekadan xiiseynaya ay u gaadho like sii saar wixii talaana hoos inoogu reeb haddana waxaan bilaabaynaa sheekadii taariikhdii koobnayd cilmi boodhari iyo hodan iyo jacaylkii dhexmaray cilmi ismaaciil liibaan oo ku magac dheer cilmi boodhari waxa uu ku dhashay inta u dhaxaysa hargeysa iyo oodweyne qiyaastii sanadka markuu ahaa 1916 waxa uu ku dhashay qoys xoolo dhaqato ah sida Soomaalidu u badnayd waqtigaasi marka uu ku kacaamay miyii kadibna u dhaxaysta 1937 ilaa 38 ayuu u wareegay dhinaca magaalada Berbera oo aad u camirnayd caasimadna u ahayd deegaanada Soomaalida ee Ingiriisku ka taliyo iminkana Somaliland la yiraahdo cilmi waxa uu Berbera ka helay shaqo taasoo ahayd foorno lagu dubo rootiga shaqadiisii ayuu bilaabay isagoo halkaa ka shaqeeya waxay isbarteen gabar ku noolayd magaalada macaamilna u ahayd goobta uu ka shaqeynayay cilmi gabadhaasi waxa ay ku beertay cilmi jacayl xadaaf ah oo aan u dulqaadan karin jiif iyo joogna u diiday waxa uu bilaabay inuu aad ugu hamiyo xiiseeyana hadalkeeda inanta magaceeda waxaa la oran jiray hodan cabdulle walanwal xilligaasi muu fududayn la hadalka igooni la noqoshada hablaha aad bay u adkayd waayo waxa lagu dhaqanaa dhaqankii soo jireenka Soomaalida kaas oo diidi jiray hablaha inay meelaha wadooyinka ragga la istaagaan ama iyada la wada arkayo la haasawaan ragga ceeb iyo wax laga xishooda bay ku ahayd hablaha Soomaaliyeed inay sidaas sameeyaan oo ay had meel wada joogaan rag kula haasawa wuxuu cilmi go'aansaday in uu gabay amaan ah u tiriyo kadibna ugu dhiibo cid u geysa oo gaarsiisa hodan si uu dareenka jacaylka ula socodsiiyo muddo haddii ay ka soo wareegtay waxa uu go'aansaday inuu wargeliyo dadka ay isxigaan waxayna la noqotay inuu gabay tiriyo sababtoo ah ma jirin isgaarsiin aan ahayn gabayga aadna waa loo qadarin jiray waxaana uu tiriyay gabaygaasi oo ahaa gabaygii ugu horeeyay wuxuuna ugu dhiibay tuke nin la oran jiray wuxuu ugu dhiibay tuke cilmi waxgarashiyo haku ma helin tolka cilmi waxgarasho kama uusan helin tolka ama dadka ay cid isugu dhawaayeen taa bedelkeeda waxaa loo yaabaa in aanan fiyoobeen baa loo qaatay waxaana ugu wacnaa iyadoo aanan qiraal iyo aqoontoona loo ahayn waxa jacaylka la yidhaahdo dabadeedna wuxuu u tiriyey gabaygan niman yahow dharaar iyo habeen waan dhabayaaye dhulkuun baan xariiqaa sidii dhiila ii timida sidii qaalin dhugutoobayoo geelii wada dhaafay dhalinyaro ma raacee kelaan dhaxanta meerayaa dhaqaatiirka la geeyaa ninka dhaawac weyn qabee
iyana way igu dhedheelayaan dhamacda daa'uuda. Cilmi uu noqday qof mahadsan oo meel laga hayo, waxaana ka faquuqmay dadkiisii oo magac iyo maamuus ka dhex lahaa, iyada oo ay taasi ugu wacnayd jacaylka uu buko oo ah wax aan laga aqoon giyiga Soomaalida. Ninkii laga maqlana ku ahayd ceeb iyo liitanimo ama isdhuldhig liita ku ah ragnimadiisa, waayo waxa uu dhaqan ahayd ragnimada loo yaqaanay calool adeeg iyo qalafsanaan. Boodheri xanuunkii la soo dirsay meel loo qaado waa la garan waaye. Waxaa la isku qanciyey in uu shaydaan dardaray oo si kale wax yihiin. Sidii la sheegay, waxaa loo geeyey wadaaddo dadka qur-aanka ku dabiiba, dadka jinka saara. Kadibna markii ay dadaal badan sameeyeen, dhan walbana loo rogay, wax kastana lagu cudiyey, xanuunkiisi cilmi kama raysan. Dabadeedna waxa uu tiriyey gabay uu dadka ugu sheegayo in waxaya yahay caashaq ama jacayl, isla markaana uu ku canaanaynayo dadka garasho la-aantooda ay garan waayeen jacaylka. Waxa uu yidhi: caashaqa haween waa horaa caadil soo rogaye, sayidkii cirshiga fuulay oo caliba soo gaadhay, carruurtay sideen meesha iyo ciise nebigiiye, cidla laga beermaan dadkoo cuud waaxid waxa qaarba cayn looga dhigay. Hays cajabiyeene Soomaalida caado xume iguma caydeene, oo ima canaanateen sidaan cuud ka iibsadaye, kuwii calaacalayay baan caamal tusayaaye. Wax dhacday inuu Boodheri u tegay Hodan oo uu tiriyey gabayga uu ku ammaanayo quruxda iyo qaayaha eebbe siiyey ee ku gebi lahaa gemiliyey. Waxaana uu ku sifeynayaa gabaygani quruxda Hodan baro dheersiiyey qaarkeeda, wuxuuna yidhi: naasaha sida hoota waran hore u soo taagan, dibnaheeda hiifka aqoon hadalsan mooyaane, gudub halacsan dayma indhaha hibada loo siiyey, qosol hanaq oo soo taabay caashaq hurinaya, ilka aan huggoodii ka luminoo kalena hoosayn, sankaa hanaankiyo qorshaha hadiyadda loo siiyey, caashaqa uu keliyeystay cilmi ma mooga inanta ku noqotay xurul caynta ifka loo soo saaray, oo warka waa gaadhay dhowr jeer si gaar ah buu ugu sheegay. Laakiin sida la soo wariyey, waxa culays ku fuulay xagga reerkooda oo loo doonayay nin maal badan haysta oo aan sida cilmi dukaan rootiile ku iibinayn ka shaqaynayn. Odayaal labada dhinac ka socday ayaa kulmay oo ay si xal raadinayaan, laakiin odayadii ka socday xagga Hodan waxay ku xidheen bixinta inanta xoolo badan oo aan xerada cilmi ku jirin, iskana ahaa xujo. waana lagu kala tegay oo halkii waa lagu kala dareeray. Hablo berbera jooga ayaa aada ugu xumaaday sida xaalku yahay, waxayna go'aansadeen in ay u tagaan quruxdoodana u soo bandhigaan si uu ku jeclaado ugalana baxo. Waxayna ku tageen sidii baana oy u sheegeen. Markaasuu cilmi tiriyey tixdan: hablahayo halkaa qoomananayseen baad ii qabteen, qalbigaan bogsiinaya qaxiga siiseen, qarqariyada jirka gacmuhu way dhaqaaqaane, qosolkaa yari waxaad nagu qaltaysaane, intaan eebba idiin qaldinin qariya laabtiina. Dadka aadka ugu dhowaa cilmi sida ilma adeerayaal iyo abtiyaal waxay talo ku gaadheen, una soo jeediyey cilmi inuu ka hadho gabadhan midda ka soo xusho hablaha badan ee ilma
abti iyo ilma adeer bay yihiin ee reer oodweyne ah waxuuna kaga jawaabay gabaygan marka horeba aniga sahwiyey ina adeerow ooduba xigtay leedahay ubax geediye abtiyaal baa ii ekaa inaan adeecaaye ammaantii ugaadh cumar lahaa erga maxaa geeye cilmi waxaa laga kaxeeyey berbera waxaa la geeyey reerkoodii oo miyiga yaalay sidii dhulka u dhexeeya burco iyo hargeysa balse si uu ugu raysto xanuunka saameeyey weynta ku yeeshay dhallinyaro badan oo ay cilmi isku reer ahaayeen ayaa la kaftami jiray laakiin marka hodan lasoo hadal qaado meel baa laga qaban jiray waxaanu maalinta maalmaha ka mid ah tiriyey sidii geela hawr marayo wax badan hawdka miranaya oo hore lasoo joojiyey kuriga heegaayo oo hoobayaal loo qaadayo hadal walwaaleed kolkaas hodan tiraahdaanba waan soo hinqanayaaye sugaantii cilmi boodheri tiriyey aad bay u badnayd waxayna ku dhararsan yihiin qisada jacaylka dhex maray isaga iyo hodan waxaana uu kaga jawaab celin jiray kolba marxaladda uu la socdo gudboonaanta qaar ka mid ah gabayadii qiimaha badnaa lama hayo oo lama meel maysan sababta jiray awgeeda oo ugu horeyn wax qiris la-aan xilliga iyo xilli dhowba oo aad ku dambeeyey jirtay waxaana uu cilmi boodheri ku dhiirsho iyo tusaale nool u noqday ka dhigtay isaga kadib fanaaniinta iyo dadka kale ee badan ee si toos ah iyo si dadbanba jacaylka ula soo dirsay cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri eebbe naxariista janno ha ka waraabiye waxa uu u geeriyooday dabayaaqadii afartameeyadii magaalada berbera waxaa lagu aasay xeebta batarale ee isla magaalada berbera si kastaba ha ahaatee sheekadii jacaylka ihi waa mid qof maqlay aanun ismoogsiin karin daruus jacayl ah oo ciidi iyo camaarba ka badan laga baranayo baa dahab ahna kagana jirto sooyaalkii hore ee siyaalka dambeba ee taariikhda ummadda soomaaliyeed tusaalena u noqotay jacaylka dhabta ah ay mataanuhu isku qaadaan dhinaca kale abwaano tiro badan ee soomaaliyeed baa sugaan aad u badan ku soo arooriyey qisadan kana soo halqabsaday cilmi boodheri jacaylkiisii xanuunka badan ee caaqilkii uu godka u galay waxaana ka mid ahaa abwaanadaasi oo ka hor inay sugaanta ku suntaan sheekada abwaanka weyn ee caanka ah maxamed ibraahim warsame hadaraawi waxaana hal tusaale ka soo qaadanaynaa maansadii haatuf wuxuuna yidhi soo hoggiisiyo hindisihiisi imuu geyn hambalyo iyo salaan iyo soo hees uma aan tirin halkaan ku nool yahay hanti wuxuu guddoontee hor ilaahay ugu teg hubisow isma aan odhan hodan sow ma waayine sow nin hoydoo ifka taar ku haysto kama helin jawaabo xalay fiid horaadkii soo haatufkiisii hudhudkiisu iisoo diray gacan haadiskiisii kama halacsan sheedo hurin bay la socoto kama hadhin barbaartii soo maan horgelinoo maan geyn hayhood maan geyn dabadeedna haybtii haye kow ma aanan odhan wuxuu yidhi halyeygii ama haadda soo faray ku bilaabay heestii ninka ila hadlayow iisoo hiloobee hawdka iyo xabaalaha hiilkayga keenee hambalyada isiiyee hoyga iga yeerow
dhaceedii maansada adigaa higaadsee anigana war igaho waxay howlo joogtaba ama lagu haraadaa hanad lagu cidhiidhiyaa hanti lagu gumaystaa dumarka hooda leeyahay raggii hoos u eegee hoogta adduuniyo qofkii samir hanbaystaba godka kuma hungoobee ifka hadimadiisiyo dhibtu way haraysaa ma huraanta aakhiro aniga ku haysto hogol bay kor joogto onkod iyo hilaacbaa dusha iga hadhaayee hore aan go'ayn baan darayaa hadhuubkee habboontiyo bislaataan habaq lii dhex joogaa ishu halacsanayntiyo onkod iyo hilaac baan dusha ga hadhayaa hore aan go'ayn baan darayaa hadhuubkee habboon bislaataan habaq lii dhex joogaa ishuna halacsanaysaa intaasi ayaan ku soo afmeernaynaa barnaamijkeennii xiisaha badnaa ee taariikhdii koobnayd ee cilmiboodhari iyo hodan halka aad kala socotaanna waa janalka hubaal t v one insha allahu qays iyo layla ayaan barnaamijka xiga idiin soo tabin doonaa aad ayaad u mahadsantihiin intiina nala joogta way nala joogtaa aad baad mahadsantihiin inta kalena subscribe sii saaro gambaleelka furo leeg sii saar sii sheergaree si inta kale saxaabtaada u gaadho sidaa iyo nabadiina